السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن سلام أصحاب الشرف المال قصة كنا شيء قصاري كل شيء سوق واهن هرجيسة سوق وينا قبتي إن حالته إن واتنا قيمتي سنين كان يعني المسلمين تا تكرر سومالي لان يرى هرجيسة وشيءنا إن جبيهان بلوجو لستي إلا بختيو ضبك كعي سوق واهن bilowday 8:10 habeen hore xalay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland isagoo qiimeynaya xaaladda iyo masiibada weyn ee halkan ka dhacday wuxuu magacaabay guddi heer qaran oo ka kooban wasaaradaha dawladda maamulka gobolka Maroodijeex dawladda hoose ee Hargeysa iyo rugta ganacsiga waxaanay guddidani hogaamin doontaa howlaha taakulaynta gurmadka masiibada ka dhacday suuqa waaheen sida ay sheegtay xog ururin hordhaca dhibkii iyo khasaarihii uu sababay masiibadii halkan ka dhacday waxaa lagu qiimeeyey inay tahay oo ay u dhaxayso 1 bilyan iyo badh ilaa 2 bilyan oo dollar waana qiimeyn hordhaca wey guddida heer qaran ee taakulaynta suuqa waaheen waxay iyaduna isla maantaba magacowday guddi hoosaad ka kooban ganacsatada iyo culimada jamhuuriyadda Somaliland oo ay magacyadooda soo sheegi doonaan rugta ganacsiga jamhuuriyadda Somaliland sidoo kale waxaa la go'aamiyey in maamulka dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa oo isaguna yeeshay kalfadhi aan caadi ahayn waxaa la go'aamiyey in maalinta salaasada oo ku beegan 5 bisha afraad 2022 suuqan dhibta badan ee ka dhacday la nadiifiyo xalliyaale wixii dabku ka tagayna laga qaado wadooyinkana la furo waxaa labada cisho loo bixiyey si dadkii dhibtu u gaadhay haddiiba waxaan bi meeshan ku hadheen inay labadaa cisho ka urursadaan sidoo kalena caagga iyo marada gubatay ee weli looga sii shakisan yahay inuu dabki jiro markaasi loo hubiyo 6 waxaa la sameeyey dhammaan akoontiyadii lagu soo ururin lahaa lacagaha ama deeqaha masiibadan suuqa waaheen ka dhacda dadku marka ay ku soo bixiyaan waxaana la isla gartay wixii qaadhaana ee ka imanaya waddamada aynu saaxiibka nahay caalamka islaamka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa European Unionka iyo hay-adaha caalamiga ah waxay qaadhaankooda ku soo hagaajinayaan guddiga heer qaran ee taakulaynta suuqa waaheen waxaana markaa akoonnadaasi ay noqon doonaan oo lala wadaagi doono banka Somaliland 1830 waa akoontka doolarka ah ee hay-adahaasi ama ciidahaasi ay ku soo hagaajin karaan akoonka Somaliland shilinka waxa weeye 1830 oo Somaliland shilinka markaa isagana lagu soo hagaajin karo wixii tabarucaad ee ka imanaya ganacsatada iyo shacabka reer Somaliland iyo shacabka geeska Afrika ku nool iyo shacabka kale muslimiinta ah qof aliyaalo qofkii ganacsada wixii ka imanaya qaadhaan ka imanaya iyaga waxa lagu soo hagaajinayaa oo guddiga ganacsatada iyo culimada ee gurmadka masiibada suuqa waaheen iyagana sidoo kale waxaa akoonnadooda ay noqonayaan qaadhanada lagu soo hagaajinayaa banka Somaliland account number 1830
iyo 32 oo ka doolarka ah iyo account number 1833 oo isaguna ah markaa ka Somaliland shilinka lagu ururinayo bangiga dahabshiil wuxuu noqonayaa Hargeysa D ama HRGD 9439 eber dahabkuna wuxuu noqonayaa eber 6577 eber 4919 bangiga Salama Bank wuxuu noqonayaa 611141 eber 44 oo saadkiisuna uu noqonayo 766111 ama 41 Amal Bank isaguna wuxuu noqonayaa 1 eber 14441331 Premier Bank isaguna wuxuu noqonayaa accountkiisu 1 eber eber 7 eber 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 8 2 eber eber 1 akoonadaas oo si weyn loo shaacin doono lagu celcelin doono baraha bulshada la soo gelin doono ayaa iyaguna markaa hadalka kale waa la wada xasanaya hadayba adkaato aan sheegayaa intaasaan aniguna odhanayaa xubnaha kale guddiga ayaan waa ujeediin maxaa la yiraahdaa akoonada lacagaha lagu soo shubayo kuwa adduunyada kaleeto macnaha dowladuhu waa khaas laakiin dadweynuhu waa halka ay lacagaha kusoo shubayaan waa dahabshiil amal meelaha kaleeto oo magac dhabay marka macnaha masiibo aada iyo aada u weyn ayaa meesha ka dhacday maxaa la yiraahdaa dadkina 2 beri ayaa loo fasaxay meeshii inay tagaan oo haddii ay wax u hareen dukaamadii ama waxyaalihii dhan ee ay lahaayeen wixii wax uga hareen inay tagaan oo ay waxoodii soo qaataan ama ay ogaadaan sida dibka uga dhacay ama u gaaray meeshoodii haddii wax u hareen iyo haddii aanu wax u harin labadaas beri dadka ayaa loo qorshaysiiyey oo ay yacni waa dad bila aadan oo dhaawac dhibaato soo gaartay dabadeetana 2 beri ka bacdi meesha waa la xirayaa oo waa la kalin gareynayaa sida uu sheegay qof dadka bila aadanka oo maaragtay taakulada ka geysanayana fadlan nambarada oo sheegay maxaa la yiraahdaa kusoo dira maxaa la yiraahdaa gadaal ayaan kasoo gelin doonaa nambarada maxaa la yiraahdaa gacana laga geysto hala istaago Soomaali meel kasta oo ay joogto waa in loo gurmadaa dadkan waa in wax la taraa waa in bangiyo meel loo furo lacagaha dahabshiil oo kale ayaa sameynaya maxaa la yiraahdaa lacagta qabashada amal kulli marka insha Allah intaasaan uga baxaya wuxuu ahaa warkani war degdega oo damaayirka uu soo gudbiyay warqad ka socotana madaxweynaha ay tahay marka ilaahay waa casaa wajalla dadkaas ha u boogadhayo dhibkii soo gaaray hal qof baa ku dhintaa maqleeyay waxa weeyaan qofkii ku geeriyoodana Allah u naxariisto kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo waa qof waqti Ramadaan dhintay marka insha Allah tabaarakallah intaas uga baxayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye